qaabkee looga faa'iidaystaa soom baa kugu soo socda soonka axkaamtiisa qaabkee loo xidhaa maxaa laga ilaaliyaa maxaa loo baahan yahay inaad soonka axkaamtiisa barato inaad bisha qaybaha siyaabaha kala gedisan ee looga faa'iidaysan kara inaad barato lianna waxa weeye in badanoo dadka sooman ka mid oo muslimiinta walil asaf waxaad arkaysaa waa dadaalayaan laakiin dadaalkoodu waa halbacaad lagu dhisay علشان ما وافق سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله درينا ما بأهبا وحي الله درينا ما بأهبا مرة هدي عملك أتسمين يسقو خلافه هديجي طريق النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه أديك أمبا الرفاضية وحبكه الميسر سأصراد النبي صلى الله عليه وسلم روحي عمل صمية عمل كان أوسن أمر كالنجي وافق سنين أو خلاف سيئة عمل كاول وسو خلينا يا ابو النبي صلوات ربي والسلام عليه marka waxa si aynan si aad u tacab khasaarin si dadaalkaaga iyo waxan aad sameynayso midhiisa aad u goosato lagaaga aqbalo waa inaad ahkaamta barato waa inaad akhrido waa inaad dhageysato waa inaad weydiiso waa inaad ku dadaasho oodan ilaahay jaahilnimo ku caabudin waa inaadan ilaahay jaahilnimo ku caabudin adoo aqoontii iyo cilmiga iyo culimadii iyo kutubtiiba heli karay inaadan ilaahay jaahilnimo ku caabudin oo markaa cudurdaar heli maysid saas daraadeed inaynu ku dadaalno inaynu cilmiga ka sahay qaadano khaasatan wixii ku saabsan bisha barakaysan ee ramadaan tana waa qodobka xigow nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi xadiis baa ka sugan uu leeyahay waxa badan dad in badan oo dadka kamida waa soomayhiin soonkoodana ka heli maayaan waxaan oon iyo gaajo ka ahay waa soomay cuntadii waa iska daayay cabitaankii waa iska daayay galmadii waa ka fogaaday laakiin inuu daalay oo rafaaday waxaan ahayn soonka ka heli maayo mid baa habeenkii taagan oo salaad u taagan oo cibaadaysanaya taagnida iyo cibaadada iyo salaadaana soo jeed waxaan ahayn ka heli maayo waa soo jeeday hurdadii uu ka tagay laakiin ajir kama helin sababtu maxay tahay لأن لبط تير أو عمل كلو أقبلا متكم مقين أما إخلاص يا إلهي درتي باكم مقين وضن كلو ليه أما ما هي عمل كان موافق سر طريقي هديجي يا سنة النبي محمد صلوات ربي وسلام عليه لبدا مدي آفدو كإيمان يسا ترى وحيكو إيمان كرتا إن أقوال لا ذهي وماشى أد وحديجي يساعد كرناس قضب كحجة اللوبة هي تلاوة حكت اللوبة هي إنه قادنا بيش كسر دوينا وحيته إن أينو قرشي صنّه سيدي أينو بيش أوقفا إلي سن له محاكو ديار سنة وكو قرشي سن إمس قرب درتين القرآن كختمته وقت جيدي مو ديارس محاد حولات ديارس سدو بيش رمضان وقلت لك الشيء إلا صدق الله بحصده حلية وقفت ببضن بيكم تهي حول أبو ديار صدق قرشي زي ما جيران عمري طاعات مكو ديار سين قيامك يا صلاتها يا وناكن يا نفحاتن يا خيراتن قرش ما ديار سي معكو ديار خاصة سلف رضوان الله عليه وحي أهان جيران بشو مركي صوت وصوت كشو حولها كرونا واسوف ودودين جيران حتى كتبتها يا آخرين يا حديث يا فقه أي درس يا وتوجين جيران waxay dhihi jireen bishii quraanka soo gashay markaas waxa la qaabili jiray quraan akhris iyo taa'aadka kala la qaabili jiray marka takhtiid iyo qorsho maxaa keenay inay adduunyadeenu qorshaysanto oo nadaamsanta akhiradeena jaanisyada ina marayo qorsho la'aan inay ugu maraan markay soo galaan bilaha ganacsigu dhaqdhaqaaqo bilaha ganacsigu kala socdo markay soo galaan intayna soo gelin ka hor laba bilood bil yaa wixii alaaba adduunka jirayba meel kasta laga keenaa bakhaarada buuxsama waxa la isku diyaarinayaa jaaniskan nin walba leeyahay qadarka ugu badan oo ribix iyo faa'iido ah ka rubso ka fujiso ka qaado طيب adduunkaaga waa mukhattad jaaniskuna kuma dhaafo البحضات كتهاي حريفنا واتكتهاي ماشا قربك لغا قوسطو الدنيا مركي تمادو لكن آخر هذا هو مهلهل
sidaas daraaddeed waxaan u baahannahay inaan takhtiid iyo qorshe ku gallo bishan saad uga faa'iidaysan lahay arrimaha kale loo baahan yahay waxaa ka mid oo bisha ku soo dhowaynaynaa horteedna loo baahan yahay inaynu la nimaadno alcaziima asaadiqa go'aan qalbigaaga ka go'an ilaahayna aada la kaashatay tabaaraka wa tacaala lianna qadarka kolba go'aanka qalbigaagu yahay dadaalna aad ku darto allana aada la kaashato alla waa kuu xaqiijinaya tabaaraka wa tacaala ama waxay ka timaadaa shay aad rabtay inuu kuu xaqiiqoobi waayo ama ma aheed go'aankaagaa daciifa go'aanka qalbiga meeshaasaa wax walba ka yimaadaan inama alacmaalu binniyaat halkaasaa go'aanku ka go'a haddii daciif halkaasi dacfi ku jiro waxay saamaynaysaa shaygii inuu hirgalo haddii aadan go'aankii qalbiga intaad la timid aadan dadaalkii iyo camalkii ku darinna iyadana dee layska kaa siin maayo sunna ilahay maa camal inaad la timaado waayo haddii labada intaad isku darto ilaahay aadan kaashaninna ayadana lagu siin maayo saasay u badan tahay saas daraaddeed baa nabigeenu wuxu uhi sal alla alay wasalam ixris calaa maa yanfacuka wastacin billah alxirsu walisticaana waa inaan marka isku darno go'aanka qalbigana waa in la helo dadaalkeedana wakhtigeeda markii la gaadho waa inaad ku darto allana kaashato tabaaraka wa tacaala liannahu laa xawla walaa quwata ila bihi tabaaraka wa tacaala akhiiran waxyaalaha bisha aan intayna soo gelin aan ku soo dhowaynayno waxaa ka mid ah maan ku qaabilayno inaan ilaahay barino tabaaraka wa tacaala siday salafkuba ahaan jireen ridwaanullaahi calayhim sida aahaarta ku imaanaysa waxay ahaan jireen bishu intaynan soo gelin 6 biloodoo ka horaysa bisha ramadaan waxay allah weydiisan jireen inuu ilaahay bishan gaadhsiiyo allahuma balliqna ramadaan ilaahu ramadaanna gaadhsii ilaahu jaaniskaana sii markay bishu soo gashoy gaadhaanna oy haleelaanna dadaalka ugu badan bay bixin jireen oo way ka faa'iidaysan jireen markay bishu dhammaato 6 bilood ee ka dambaysana allah bay weydiisan jireen inuu ka aqbalo wixii dadaal iyo khayr ay bisha la yimaadeen oo fiirsa marka noloshooda tiir dhaxaadka ay ku wareegayso waa ramadaan marna allowna gaadhsii marna allow naga aqbal wey muhiimadda ay leedahay baad garanaysaa maxaa yeelay hal habeen oo ka mida bishaa barakaysan ayaa 83 sano camalkooda ka khayr badan xaggay wax kale yaalaan bil kale miyaa wanaaggaasi ku jira ninka dayacan waa ninkii fursadaasi dhaaftay isagoo dayacay ninka liibaanayna waa midka fursadda intuu ilaahay gaadhsiiyey ka faa'iidaystay mid kalena waa inu xusuusin waxaa laga yaabaa inay noqoto fursaddii kuugu dambaysay noloshaada ramadaanku soo mara kii ugu dambeeyo inuu yahaa dhici karta ajalka gacantaada kuma jiro adiguna isuma talisid xilligaad dhiman garan maysid goobtaad ku dhimanna garan maysid sababtaad u dhimanna garan maysid hawl rabbi weeye tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed wax kaa tegay soo noqon maayo wax soo socdana maba ka warhaysid wuxuu la imaan doono wakhtiga markaa aad haysatee ku hor yaalla kaasaad saad uga faa'iidaysan lahaa loo baahan yahay in badanoo walaalaheena oo muslimiina ahluliimaan ah ahlutaqwa ah ahlulkhayraad ah oo bishii ramadaanee sanadkii tegay inala soomay oo cibaadaystay oo dadaalay ayaa maanta jaaniskan aan mar labaad helin dhulka ka hooseeyo qabriyada ku jira laga yaabo mid iyaga ka mida maanta haddii la dhihi lahaa maxaa lagu siiyaa inuu dhihi lahaa dib ha la ii celiyo si aan mar kale ramadaankan uga soo faa'iidaysto laakiin ma jirto waxaa dhici karta adigana ramadaankan inuu yahay jaaniskii kuugu dambeeyey oo aad ku jirto ramadaan wixii ka dambeeya dadka la qaadi doono oo safarta iyo socdaalka dheer geli doona inaad ka mid tahaa dhici karta wabitaali waxaad ugu talagashaa oo u xisaabtantaa inay tahay jaaniskii kuugu dambeeyey sidaad u sahay qaadan lahayd rabbiga ula kulmi lahayd
aad xisaabtaadiyo kownkaaga wax fiican u gashan lahayd hawlkuu taallo way rabbigaana kaasho tabaaraka wa tacaala sallu wasallimu cala khatami alanbiyaai walmursaliin allahuma salli wasallim wabaarik cala cabdika warasulika muxamed wcala alihi wasaxbihi ajmaciin warda allahuma can alsaxaabati waltaabiciin وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بالصحة والعافية والأمن والأمان يا حي يا قيوم اللهم وفقنا للاستفادة منه حق الاستفادة اللهم وفقنا للاستغلال في الخيرات والطاعات فيه يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك